madaxweynaha Turkiga ayaa sheegay in luqadda Turkiga aysan helin mudnaantii loo baahnaa. luqadda dalka Turkiga ma haysato kaalintii ay mudnayd, ayuu yiri madaxweynaha Turkiga oo Arbacadii la soo dhaafay, isagoo ku baaqay in la ilaaliyo muhiimadda ay leedahay luqaddu. isaga oo sii wata hadalkiisa, madaxweynaha ayaa wuxuu yiri ma aanan siin kaalintii ay lahayd luqadeenna, taa oo ah calaamadda aqoonsigeenna qaran iyo xasuusteenna, ayuu yiri Rajab Tayyip Erdogan oo ka hadlayay munaasabad abaalmarinta gaarka ah ee wasaaradda dhaqanka iyo dalxiiska ee sanadihii 2019-2020 oo lagu qabtay xarunta madaxtooyada. luqadeennu waxaa soo gaaray hoos u dhicii ugu weynaa taariikhdeenna sababo la xiriira habka loo fududeysto luqadda iyo muhiimadda ay mudnayd ee aan la siin, ayuu yiri Erdogan oo hadalkiisa sii wata. madaxweynaha ayaa sheegay in dhammaan mas'uuliyiinta iyo shacab weynaha dalka ay u baahan yihiin inay u istaagaan badbaadinta dhaqankooda soo jireenka ah, isla markaana aan lagu dhexmilin luqadda Turkiga luqadaha qalaad. madaxweynaha ayaa carabka ku adkeeyay in ummad aanan ilaalin luqadooda isla markaana aan kobcin afkooda ay halis ugu jiraan in ay lumaan. waxaan aaminsanahay inaan ilaalin karno dhaqankeena, aqoonsigeena, taariikhdeenna iyo farshaxankeena innaga oo ah dal mugweyn, ayuu hadalkiisii ku soo gabagabeeyay madaxweynaha Turkiga Rajab Tayyip Erdogan.